kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa warbaahinta bilan ee magaalada Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno Dr. Saacdiye Siyaad oo ah aasaasaha iyo sidoo kale maamulaha macadka Hano Academy ku soo dhawow barnaamijkeena Dr. Saacdiye aad ayaa mahadsantahay Fatxiya toddobaadkii hadda ku soo gudubnay waxaad samaysteen 3 maalin oo shir ah marka shirkaasi muxuu ahaa noo sheekay shirkaas waxaa la yiraahdaa Somali STEM Summit STEM waxay u taagan tahay Science Technology Engineering and Mathematics waa shir weyne caalami ah oo ay tahay madal ummadda Soomaaliyeed aqoon-yahaniintii dadkeena siyaasiyiinta ahaayeen dadkeena ganacsatada ahaayeen dhalinyaradii iyo international community-ga ee isugu imaanayeen ka hadlayeen dhibaatooyinka oo fatahaadiyada abaaraha soo noqnoqonayo iyo climate change-ga runtii wadankeena qabsado waxyaabaha kale oo laga hadlo waxaa ka mid ah caafimaadka waxbarashada beeraha iyo sidii loo dartargelin lahaa STEM iyo art iyo TVET-na wuxuu u taagan yahay technical and vocational education training waxa kaloo runtii diiradda la saaray STEM women in STEM oo runtii aan rabnay inaan gabdho badan oo Soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo waxbarashada dhinaca STEM waxa kale oo la soo bandhigay dhalinyaro ay soo bandhigeen xirfadihii ay STEM ka barteen iyo habkii ay software and mechanical engineering iyadii ay subiyeen sababtoo ah haddii aad rabtid wadankeena in uu noqdo wadan industrialization leh oo warshadaysan waxaad u baahan tahay asaaskina waxa u fududeynayo qalabkii oo yar oo la code gareynayo oo la isku xiraayo si ay design-kii hadhoota iyadoo weyn oo kale tad ay ugu fikiri lahaayeen waxa kaloo jirtay in aan suubino barnaamij aan ku launch gareynayno oo maal Somali Leapfrog Foundry la dhaho barnaamijkaas oo kale tad aan rabnay dhalinyaro inay ku tartamaan lacag maalgelin ah oo runtii lagu dhiirigelinayo wax soo saarka wadanka siiba qaasatan qaybta STEM marka doorka uu ku lahaa macadka Hano maxay ahayd macadka Hano Academy runtii wuxuu ahaa macad aan aasaasnay 2014kii wadanku waxaan ku soo laabtay 2011kii markaas ayaan arkay baahi weyn inay ka jirto wadanka qaasatan dhinacan oo xirfadaha gacmaha loo yaqaano technical and vocational education training waxa kale oo aqbad weyn ka taagneed dhinacan capacity building loo yaqaano oo professional development trainingada oo dadka shaqaalaha dawladda shaqaalaha private sector-rada macallimiinta iyo ardayda jaamacadaha ka soo qalin jabsheen waxa kale oo aragnay inay baahi weyn ka jirto dhinaca shaqo abuuritaanka like job creation employment and entrepreneurship macadka waxaan kale oo aan ku soo darnay research and consultancy waa meeshii aan ka bilownay waayo 12 ilaa 14 waxa aan waday oo wadanka markaan ku soo laabtaba aan suubin jiray waxay ahayd research-ki aan suubiyay ayaa igu dhiirigeliyay runtii in aan suubiyo macadka dan markii aan macadka furnay qaybihii kaleetood oo aan dib aan ugu soo celinay aan ugu soo darnay waxaa ka mid ah online learning waxaa kaloo dib ugu darnay gadaal aan uga darnay cultural heritage-kii oo aan ku bilownay luqadda Soomaaliga qoritaankeedii akhriskeedii waxaan kaloo dib aan ugu darnay STEM oo Science Technology Engineering Mathematics uu yahay inkastoo Somali STEM Society ay tahay umbrella mase association midaynayo dadkeena kale gobolada joogo yet again waa part of macadka Hano Academy oo wada shaqaynta meeshaas ayay ka socotaa